higankeni iyo qawlihii guud iyo guryantii waa horseedaheni dalka horumarkiisiyo intisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheni jangoynta himilada kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hawlaha guud iyo horumarinta magaalooyinka waxaa barnaamijkan maanta inoogu martay hanti dhowraha gudaha wasaaradda hawlaha guud mudane Khadar Daahir Cabdisalaan oo ka warami doona qiimeynta iyo aqoonsiga injineerada dhismayaasha dalka. wasaaradda hawlaha guud mandatekeeda waxaa ka mid ah qiimeynta iyo aqoonsiga injineerada dhismaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madax bannaan heer 2015 marka in injineerkii horta la aqoonsado oo loo aqoonsado inuu injineer yahay hadduu shahaado haysto amaba uu ka soo baxay school technical iyo in la qiimeeyo oo la ogaado injineerkaasi aqoontiisu intay leegtahay marka iyadoo xilka ay waajibaadka fulinaysa waxay diyaarin doontaa ururka injineerada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dallada ay ku midoobi doonaan dhammaan injineerada ururkaasi wuxuu soo kala saari doonaa ama uu soo qaban doonaa injineerada waxay ku soo xariisan doonaan applicationkooda iyo codsigooda dadana wuxuu soo gudbin doonaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud oo markaa ku soo saari doona digreeto wasiir qofka injineera ama siin doona shaatiga injineernimada oo dhan doona qofka injineerkaas qiimihiisa iyo darajadiisa waa sida ururka injineerada markaa weli lama dhisin laakiin wasaaraddu waxay ku guda jirtaa inay diyaariso kow dastuurkoodii deedna ay u qabato shirweyne ay isugu yimaadaan dhammaan injineerada Jamhuuriyadda Soomaaliland shirweynahan ay ku doortaan gudoomiyahoodii iyo qaabkii ay markaa isku maamuli lahaayeen noo faahfaahi waayahay noocyada ruqsadaha ee injineerada qaybo kala duwan ayuu habraacan sheegayaa oo uu u qaybinayo ruqsadda injineerka iyo darajooyin kala duwan marka noocyadiisa haddaan ku horeyno waxaa ka mid ah civil engineer iyo dhammaan shaqooyinka la xidhiidha civil engineering architect iyo dhammaan shaqooyinka la xidhiidha iyo darajooyinka ka hooseeya ee qofka foremanka ama technicianka urban planning surveying iyo GIS-ka iyo xirfadaha kale ee shaqadooda la xidhiidha dhismaha marka mid walbana waxay leedahay darajooyin darajada A B C D E taasi oo qaybood ay ka kooban tahay ruqsadda engineering maxay tahay shuruudaha ruqsadaha injineerada ee looga baahan yahay shuruudu aad bay fudud yihiin una kooban yihiin in qofku soo cadeeyo inuu muwaadin Jamhuuriyadda Soomaaliland yahay intii la siinayo injineer wadaniya ruqsadeeda la siinayo inaanay da'diisu ka yarayn 25 jir inuu maskaxda ka fayow yahay inaanu hore ugu dhicin xukun ciqaabeed oo kaba dambaysa iyo inuu haysto shahaado jaamacadeed oo dalka laga aqoonsan yahay iyo inuu markaasi qiimeynta wasaaradda hawlaha guud uu ka gudbo haddaba waxaa dhici karta inuu jiro injineer haystaa shahaado jaamacadeed isla markaana ismiyaal waaweyn oo baaxad wadanka ka fuliyay ama bara jaamacadeed oo engineering dhiga saadaraad wasaaraddu kaasi qiimeyn ku sameyn mayso ee si toos ah baa loo siin doonaa maadaama uu in badan ka shaqeynaya dhismaha aqoonteedii leeyahay markaas ay ku dabaqmayso in lagu sameeyo qiimeyn iyo imtixaan iyo hawlahaas waayahay maxay yihiin diiwaangelinta injineerada wadaniga qaab nooceeya ayaa loo maraya qofku marka uu soo codsado wuxuu codsigiisa ku hagaajinaya ururka injineerada Soomaaliland markaas oo ku lifaaqaya dhammaan cadeymihiisa oo xirfadiisa aqooneed waa markaa dibna u bixinaya cashuurihii looga baahnaa haddii markaa ururku ku qanco in codsadahan uu buuxiyo shuruudihii looga baahnaa waxa ay qiimeyn doonaan ama imtixaan ka qaadi doonaan mihnadiisa injineernimo oo eegi doona darajada uu engineering uu u qalmay in la siiyo muddo 12 sano gudahooda waxaana natiijada imtixaanka ay ku soo saari doonaan muddo 7 sano marka haddii ururku arkay in qofkan soo codsaday uu buuxiyo shuruudihii looga baahnaa waxa uu u soo diraya codsigiisaas wasiirka wasaaradda hawlaha guud isagoo leh qofkani ama engineeringkani wuxuu soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa deetana wasiirkuna wuxuu ku soo saari doonaa wareegta wasiir ayuu ku soo saari doonaa muddo 14 sano gudahooda waa si wanaagsan haddii hore u soo sheegnay diiwaangelinta injineerada wadaniga bal iyadana faahfaahin guud naga sii diiwaangelinta injineerada shisheeye ee dalka yimaada inagoo og in dad fara badan ay wadanka yimaadaan qaar aynu u baahannahay iyo qaar aynaan aqoontoodii iyo farsamadooda midna aynaan u baahnayn waxay wasaaraddu markaa dejisay habraac ay isku miisaamayso aqoontooda oonu ka faa'iidaysanayno iyo inaanay injineero fara badan aynan u baahnayn waddanka aanay imanin marka qofku waa inuu marka koobaad inay jirto baahida shaqaalaysiinta qof shisheeyaha waa inay jirto dee aanay baahidaasi jirno aan loo baahnayn haba yaraatee qofkaasi lama siinayo liisanka qofka caafimaadkiisa iyo inuu caafimaad qabo inaanu dembi ka gelin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dal kale
waa inuu dalka sifa sharci ah kusoo galay islamarkaana haysta fiisaha dalku galka ama qaxoonti ahaan loogu ogolaado dalka jamhuuriyadda somalilan waa inuu haysta ruqsadda ogolaanshaha shaqada ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waa inuu haystaa warqadda deganaanshaha dalka jamhuuriyadda somalilan ee kasoo baxday immigrationka ama hay-adda ay markaasi khusayso oo waafaqsan muddada ruqsadda shaqada loo siiyey iyana waxaa ka mid ah horta inuu haysto ruqsad shaqo oo ansaxa oo dal kale uu kasoo shaqeeyey qofkan inuu haysto ruqsad kale oo wadanka kasoo jeedo ama wadan kale uu kasoo shaqeeyey waanu yana haysto iyaguna waxaad warbixin guud naga siisaa miyay khusayaan habraacyadani dadka consultanka ama la taliyayaasha xagga shirkadaha iyo injineerada habraacyadan miyay khusayaan sidee loola macaamilaya iyaga maxay yihiin waxaa idinka qorshaysan ka wasaaradda howle guud ahaan consultanadu maadaama yihiin ama ay qabanayaan shaqooyin dhismo ah waa iyaga laftooda habraacanis wuxuu u sharaxayaa si faahfaahsan qeybaha kala duwan ee consultancyga ama shirkadahaasi sida architectureka sida dabgelinta guryaha ama electrical engineering serviceska amaba adeegyada kale ee dhismaha ee ama dabgelinta ha noqoto ama ha noqoto dhismaha khuseeya oo dhan wasaaraddu way diiwaan gelin doontaa waxaana ay u raaci doontaa qaabkii hore aynu usoo sharaxnay shirkad muwaadiniin kaliya leeyihiin shirkad ay leeyihiin muwaadin iyo shisheeye iyo shirkada shisheeye keliya leeyahay dhammaantood waa la diiwaan gelin doonaa waxaana ay u kala bixi doonaan darajada e oo ay isku diiwaan gelin doonaan dhammaan muwaadiniinta iyo shisheeyuhuba iyo ka ay wada leeyihiin iyo darajada p e c oo loo ogol yahay muwaadiniinta oo keliyata marka iyaga laftooda waa la diiwaan gelinayaa waana ay socotaa diiwaangelintoodu waxay ka socotaa xafiisyada wasaaradda howlaha guud ay ku leedahay wadanka iyo dhammaan gobolada iyo degmooyinka wadanka haddaynu su-aashaas intaas kaga nimaadno maxay noqon kartaa haddii laba shirkadood oo dhismayaan isku biiraan ama ay shuraakoobaan iyada bal tafaasiil naga sii qaabka loola macaamilayo iyo wadada loo marayo habraacyadooda waxaa dhici karta in shirkad darajadeedu tahay p laba shirkadood labadooda darajoodu yihiin p ay doonayaan inay ku tartamaan qandaraas ay fulin karto shirkadda e laba shirkadood waxay xaq u leeyihiin inay midoobaan si ay qandaraaskaasi ay u gaadhaan ama ay u fuliyaan marka waxay imanayaan xafiiska wasaaradda howlaha guud iyaga oo buuxin doona form loo diyaariyey oo midow ama isku biirid laba shirkadooda marka haddii ay gaadhaan awoodii dhaqaale iyo farsamyo shaqaale ee looga baahna mashruuca darajadiisu tahay e way ku tartami karaan darajadana waa la siin doonaa darajada e marka midowgaas iyo isku biiradaas labadaba iyo habraaci loo raaci waa midab furan shirkada dhismaha iyo consultanada labadaba waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijkeena howlaha guud oo ay isa kaashadaan idaacadda raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan iyo wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyinta jamhuuriyadda somalilan barnaamijkan waxaan la socodsiinaya anigoo anwar xasan dool tani kulanteena damax nigatayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa xigankeeni iyo qawlihii guud iyo guryantii waa horseedaheeni dalka horumarkiisiyo hindisaha dhismaha qaran wayrgeliyaheeni jaangoynta himilada